السلام عليكم ومركل أنيقو محمد فارح waxaan jeclahay insha Allah tacaala inaan idiin soo gudbiyo videoga saddexaad ee ku saabsanaa companyga Somali Soft. Maanta waxaan idiin soo gudbinaa waxay tahay HRM software ama sida aad dhihi karto human resource management. Okay, su-aashu waxay tahay waxaa wada ognahay company kastoo caalamka ka jira wuxuu leeyahay department of HRM, departmentiga shaqada iyo shaqaalaha, wuxuuna maamulaa departmentigaas in shaqaalaha sida loo shaqaaleeyo iyo shaqaalaha sida loo maamulo, administrationkooda, lacag bixintooda, wax walba. waxaa kamid a marka su-aasha kood waxay tahay companygaaga muu baahan yahay softwareka human resource management muu baahan yahay? wuu u baahan yahay. waxaan wada ognahay company kastoo ee caalamka ka jira maadaama HRM department uu leeyahay, waxaa easy markaas inaad ku controlshid administrationkaaga ama xafiiskaaga, xarunta shaqaalaha, qofka HRMka ama receptionka fadhiyo, in markaas uu controli karo shaqaale kasto iyo shaqo kastoo markaas cusub iyo shaqaale kastoo markaas imaanaya ama shaqaale kastoo ku jiro companygaaga kamid in markaas uu ku maamuli karo si easy ah. wuxuu qabsamaa categoryada uu leeyahay. waxaa kamid ah 3 category waaye. mid koowaad waxa waaye faa'iidada keliya maxay tahay? faa'iidada waxay ka softwareka wuxuu ka saacidi karaa markaas inaad ku kategoriyo sidoo kale gareynta shaqaalaha oo kale, healthigooda oo kale, bolisiyada oo kale. macnaha softwarekan waa keliya qaabka markaas usa macnaha ula macaamiltamaysa shaqaalaha oo kale. waxaa kamid oo kale sida markaas shaqada aad ku siinayso, macnaha lacagta aad ku siinayso sidoo kale, salary oo kale, lacagta sanadkii macnaha commissionka lacagta u saaran oo kale, whatever. waxaa kamid ah compensation. waxaa kamid ah in markaas magdhowga qaabka ku sii lahdo kale. waxaa kamid ah markaas time attendance schedule, macnaha sida markaas ugu xadidi lahayd shaqaalahaaga inuusan hal daqiiqo dhinacna u dhaafi karin, hal daqiiqana shaqadiisa aysan kordhi karin, iyo attendancega qaabka loo qaado kale. attendancegana wuxuu noqon karaa in markaas fingerprint inay noqoto farta uu kusoo galo macnaha shaqada xafiiska, ama markaas hadday tahay il inuu kusoo galo, hadday tahay ina gacantiisa kusoo galo, in markaas oo shaqada uu kusoo geli karo sida macnaha electronic ahaan oo kale. iyo waxaa kaloo keeni karta scheduling, qaabka markaas u samayn kartay timetable shaqaalaha hebel department hebel intaan ku shaqeyna hebel department hebel. that means xilliga markii la gaaro waxaa macnaha shaqaalaha ama ninka markaas ama employga mobilkiisa HRM kamid ah waxaa siinaysa alert, this time over, you have to move macnaha another department, something like that. talent management tools maxaa kamid ah in markaas uu leeyahay HRMka sidee markaas lagu aqbalaa applicationada markaas loo soo diray, in markaas uu leeyahay by aad ku keedin kartid shaqaalaha markaas soo codsanayo, iyo qaabka markaas applicationada markaas aad ula macaamiltamaysid shaqaalaha cusub ee dalbanayso companyga ama uu dalbanayo companyga oo kale. waxaa kamid ah trainingka, qaabka markaas wuxuu ka saacidaa training oo kale, wuxuu ka saacidaa shaqaalaha performancegiisa intuu la egyahay, iyo managementiga markaas inaad shaqaalaha performancegiisa la socon kartid. hebel performancegiisa walwa, hebel performancega ugu hooseeya, performancega haddaad macnaha ziyaado weysid waxa waaye something wrong, waxaa qaldan. sida markaas magdhowga aad ku sii leedahay compensation management, sidee ku maamuli kartaa magdhowga ee shaqaalahaaga. waxaa kamid ah sida markaas aad ku balangareyn kartid ama aad u balangareyn kartid shaqada markaas ay qabanayaan, inaad ku controlshid ama aad ku xadidid ama aad ku ilaalisid. sidoo kale waa ka heli kartaa softwarekan. wuxuu kaloo softwarekan ku saacidi karaa sidee engage aad ku samayn kartaa macnaha muxuu ah shaqaalahaaga. tusaalahan kale shaqaalahaaga wuxuu jooga gurigiisa, waa loo baahday, that means macnaha inta aad ka wici lahayd telephone wuxuu yeelan karaa application markaas mobile application ama apps oo markaas shaqaalaha keliya ay username ay kule oo ka jeegarayn karo wax haddii loo baahan yahay, haddii shaqo ay taagan tahay, departmentkiisa haddii loo baahan yahay, trainingkiisa intoo la egyahay, lacagtiisa intee la eg tahay, meeqoo hela, meeqaa dib u dhacday, wax kastoo markaas inooga ogaan karo HRM applicationka dhexdiisa. macnaha yaa manage gareynayo HRM? waxaa manage gareynayo waa friendly user, waa easy. waxaana manage gareyn karo HRMka qofka fadhiyo ama receptionka qofka fadhiyo, waana la train gareynaa. Somali Soft waxay kugu talagashay softwarekan oo diyaarsan waan haynaa waana jecelnahay insha Allah tacaala qofka u baahan inaan markaas aan ka gadno teeda kalena in markaas aan u train gareyno aan u tababarno si markaas easy oo ku isticmaali karo.
okay go-aan ma ka gaari kartaa marka companygaaga inuu u baahan yahay HRM software. waxaa uga jeednaa meeshaan HRM pamphletka all moduleska oo kamid yahay ama inta u qaybsamo faa'iidada aad ka heli kartid. waxaa nagala soo xiriiri kartaa telefonkaas Somali Soft. waxaan rabaa marka inaan idiin sheego maskaxda waxaa ku haynaya software kasta oo aniga haddeertaan aan meeshaan video aan kusoo duubo waa naga heli kartaan. waxaa kamid ah hotel management system, waxaa kamid ah restaurant management system, waxaa kamid ah school management system, waxaa kamid ah financial management system, waxaa kamid ah electronic point of sales, waxaa kamid ah learning management system, waxaa kamid ah softwareda aan hayno. waxaa kaloo marka idin raacina waxay tahay qofkii u baahan software aanan anaga haynin waxaan u sameyn karnaa customization. wuxuuna soo gudbinaa documenti diyaarsan, waxaana ku dhaqaaqaynaa markaas sidaan u bilaabi lahayd aan u design garan lahayd. qofkana markaas wuxuu easily ku heli karaa software oo u baahnay design kasta u baahan yahay, platform kasta u baahan yahay, haddii ahaaleed web application, haddii ahaaleed mobile application, haddii ahaaleed desktop application. waa mahadsantihiin. waxaan jeclaan lahaa videogan qof kasta oo dhegeysta ama daawado inuu sii gaarsiiyo inta markaas friendskiisa, asxaabtiisa, waalidkiisa iyo qof kasta oo isdhihi karo uu u baahan yahay. aadaan u mahadsantihiin intii qofood ee videogii ama video hele daawatay ee share garaysay. waxaana jeclaa markaas inaan kor u qaadno xagga teknolojiyada meesha aan ka taagannahay. aadaan u mahadsantihiin. asalaamu calaykum.